Assalaamu calaykum Soomaaliyeed. Maanta waxaan isla fiirineynaa injineerka sameeyay dabinkan dooliga loogu talagalay qaabka uu sameeyay. Runtii waa dabin aad u halis badan, dhabar go'na ku ah dooliyaasha. Haddii aad adeegsato maanta laga bilaabo, dooliyaasha waxay ka qaadan doonaan boorsooyinka gurigaaga. Ugu horeyn waxaa soo diyaarsanaysaa caagan qajaclaha hortaada ka muuqda, sidoo kale laba qori. Sidoo kale waxaa soo qaadanaysaa biinan. inta kadib waxaa soo qaadanaysaa dunta halkaas kaaga muuqata. Sidoo kale waxaa soo qaadanaysaa biinkaas ama waxaad adeegsan kartaa silib. Sidoo kale waxaa soo raasinaysaa mirar uu jecel yahay ama miro uu jecel yahay dooliga. Intaan ayaad ku samayn kartaa dabinkeena maanta. Caaga qajaclaha ayaad ka jaraysaa afka hore ama qaybta ugu horeysa ayaad ka jaraysaa. Ma wada jaraysid, qayb ayaad ka digi doontaa laakiin inta ugu badan waa jaraysaa. kadib inta aad jarta ayaad duleelinaysaa. waa qaybtii aad jarta ayaa dhinac ka duleelinaysaa, sidoo kale dhinac la siman ayaad ka duleelinaysaa. labadii dhinac aan duleelinay waxaa gelinaynaa qorigaas toosan. qorigaas ayaa la gelinayaa labadii dhinac hal mar ayuu qaadanayaa. kadib laastigaas maadaama qori kale u baahan yahay, qori kale ayaa meesha kale laga duleelinayaa, waa la gelinayaa. sida qorigaas u gelisoo kale ayaa u gelinaysaa meesha kale. ma doonaysaa inaad luqad English ku barato 5 bilood gudahooda? haddaba maxadka Fancab ayaa kuu diyaariyay koorso aad looga shaqeeyay si aad uga faa'iidaysid. kala xiriir lambarka halkan kaaga muuqda ama waxaan kuu soo dhigay commentiga ugu horeeya. waa kaas labada qori hadda waa diyaar. laastigaas ay ku dhijinaysaa, kadibna laastiga kale ayaad ku dhijinaysaa. sida markaa jag uga siisid qaybta soo dheer qoriga ayaad ka goynaysaa, kadibna kan kale ayaad ka goynaysaa. sida hadda u jeedidba waa diyaar. dabinka wuu isku laamayaa markii kor loo qaado afka jaran. kadib waxaad ka duulinaysaa gadaal. gadaashaas waxaa laga soo geli doonaa mirtii la rabay dooliga inuu ku dagmo. afka hore dun kaga dhij ama dunta rabta ayaa adeegsan kartaa. duntaas waxay kor usoo qaadaysaa caaga afkiisa hore. markii lasoo jeedo waxaa ujeedaaba inuu qaadmaayo afka hore, in u bannaan tahay meel uu dooli ka galo. dunta hadii lasii daayo macnaheedu waxa waaye wuu isku daboolmayaa dabinka, kadibna wixii ku jira dooli iyo qofba way ku jiraanba dabinku way soo galeen. siligaas ayaa soo raasanaysaa ama silig nuuc raba ayaa sida nuucaan u duuduubaysaa, ama haddaa haysto binsaan u samaysan waa u adeegsan kartaa. mirta dooliga uu jecel yahay ayaad dhexda ka gelinaysaa. waa mir walba uu dooliga uu jecel yahay, waxaana ka mid ah miraha luuska. dhexda ayaa laga gelinayaa sababtoo ah waxaa la rabaa meesha inuu ka soo galo. sirta dabinka waxaa waaye dooligu markuu soo galo meesha wuxuu u maleynayaa mirtaasi inay meesha ku dhaganeen, kadib wuu soo jiidayaa. markuu soo jiidana xarigaas ayaa fuqaaya, kadibna wuu isku daboolmayaa. had dabinku waa diyaar. kaliya waxaa la sugayaa dooliga inuu soo galo, inuu dooliga ama uu ku dhex dhaco. qaabkaas markuu dooliga usoo jiito mirta, xariga kore ayaa fuqaaya, kadibna maxaa dhici karahe zam uu isku daboolmayaa. hadda waxaa isla fiirinaynaa inuu dooli dhex geli karo in kale, maadaama u baahannahay inaan hubino inuu dabinkaas shaqeynayo iyo shaqeynaynin. meel dooliyaasha ku badan yihiin ayaad dhigaysaa. ujeedin hadda hal dooli ayaa soo gaatamaya. inuu dhex galo ayuu rabaa, laakiin dooliyaasha aad bay u caqli badan yihiin. wuu dareesiyaa inay meesha wax ka qaldan yihiin, laakiin dabinkan ma yaqaanaan intooda badan.
hay wuu galay ku dhigi doontaa yes way ku dhigtay haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan adigoo mahadsan noo la galay